السلام عليكم أصحابتي كسو دوادا جنالك إسماعيل عبد الله maanta wararkeena waxa ugu waaweyn maalmihii u dambeeyay waxa dalka Soomaaliya ka dhacay dhacdooyin isugu jira amni siyaasadeed iyo horumar dhinaca dawladnimada ah warbixintan waxaan ku eegaynaa socdaalka saraakiisha sare ee Baydhabo kulamada muhiimka ah ee ciidamada eedeymaha siyaasadeed ee ka soo baxay mucaaradka xaaladda xurriyadda saxaafadda khilaafka dastuuriga ah iyo talaabada cusub ee dawladda dhinaca badda magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed waxaa maanta gaaray saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka booliiska Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin kale oo heer qaran ah waxaa sidoo kale halkaas ku sugan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Shuute oo qayb ka ah howlgallada la xiriira sugidda amniga socdaalkan wuxuu imaanayaa xilli howlgallo culus ay ka socdaan Koonfur Galbeed dawladda ay dadaal ku bixinayso ciribtirka al-shabaab iyo in la xoojiyo wada shaqaynta ciidamada kala duwan taliyaha xarunta isku dabaridka howlgallada wadajirka ah sareeye gaas maxamed cali bariise ayaa furay kulan aqoon isweydaarsi ah oo muhiim ah kulankan waxaa soo agaasimay hoggaanka CIMIC isku xirka shacabka iyo ciidanka ujeedada kulanka ilaalinta shacabka xilliyada howlgallada xoojinta xiriirka ciidanka iyo bulshada ka hortagga waxyeelada rayidka sareeye gaas bariise wuxuu si cad u sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay il daran yihiin dhibaatooyin badan in aysan habboonayn in lagu sii daro dhibaatada dagaalka in ciidanka la rabo mas'uuliyad buuxdo tani waxay muujinaysaa isbedel ku yimid fikirka militariga iyo muhiimadda la siinayo xuquuqda aadanaha taliska ciidanka xoogga dalka wuxuu sheegay in ay socdaan dadaalo gurmad ah in shacabka laga caawinayo deegaanada laga xoreeyay al-shabaab in la dhisayo kalsoonida shacabka tani waxay muhiim u tahay guusha dagaalka iyo taageerida bulshada siyaasiga mucaaradka ah Cabdiraxmaan Cabshukuur Warsame ayaa si adag uga hadlay arrimo dhowr ah wuxuu sheegay in sharci darro loo xiray wariye in la jirdilay in dawladda ay caburinayso saxaafadda eedeynta ugu waaweyn wuxuu ku eedeeyay dawladda uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud in ay caburiso ra'yiga ku takrifasho awoodda xabsiga dhigto cid kasta oo ka aragti duwan kiiska wariyaha Cabdixafiid Nuur Barre Somali Cable TV oo shaqeeya ayaa noqday mid si weyn loo hadalhayo arrimaha la sheegay xarig sharci darro ah jirdil xadgudub ah tani waxay saameyn ku yeelan kartaa kalsoonida warbaahinta sumcadda dawladda iyo dimuqraadiyadda dalka waxaa sidoo kale jiro dood culus oo ku saabsan faragelin dawladda federaalka arrimaha Koonfur Galbeed qodob muranka dastuurka wuxuu dhigayaa haddii madaxweyne iscasilo 30 maalmood gudahooda doorasho la qabto laakiin mucaaradka waxay sheegayaan in dawladda federaalka ay fargelin ku sameysay in nidaamka federaalka la wiiqaayo Cabdiraxmaan Cabshukuur wuxuu ka digay in dalka uu galay marxalad halis ah in awoodda la urursanayo in doorashooyinka la fargelin karo haddii arrimahan la xakameyn waayo waxaa dhici karta khilaaf siyaasadeed waxaa daciifi kara nidaamka dawladda Soomaaliya ayaa qaadatay tallaabo muhiim ah waxay diiwaan gelisay markab cusub oo magaciisu la yiraahdo Guney IMO 823417 wuxuu qaatay calanka Soomaaliya soo maxay tani ka dhigan tahay soo nooleynta awoodda hadda kobcinta dhaqaalaha xoojinta ganacsiga tani waxay ka mid tahay dadaalada dib u dhiska ah dawladnimada iyo ka faa'iideysiga kheyraadka badda marka la isku geeyo dhammaan dhacdooyinka waxaa muuqda 3 arrimood oo waaweyn amniga tan labaad siyaasadda tan saddexaad oo ah horumarka tan amniga ku horumarno dagaalka dhanka ah al-shabaab iyo isku dabarid ciidan tan labaad waa khilaafyo mucaarad iyo dawlad eedeymo culus iyo tan saddexaad oo ah diiwaangelinta maraakiib isku day dib u dhis ah Soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad xasaasi ah dagaal adag ayaa socda siyaasad kulul ayaa jirta horumar tartiib ah ayaa muuqda mustaqbalka dalka wuxuu ku xirnaan doonaa sida loo maareeyo khilaafaadka ilaalinta xuquuqda shacabka iyo wada shaqaynta dawladda iyo bulshada Baydhabo maanta maaha oo kaliya goob ciidan waa xarunta go'aano waaweyn oo go'aamin kara mustaqbalka Soomaaliyeed